Cali Guudlaawe oo xilka ka qaaday Cali Jayte gudoomiyaha cusub oo u magacaabay Hiiraan ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan ka codsanayaa inaad soo follow gareyso sidoo kaleetana muuqaalkan aad like gareyso kabasi wanaagsan haddii aad u share garay saaxiib adigoo kale waad ku mahadsantahay la socodkaada. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan oo hormuud u ahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. wareegtada xilka looga qaaday Cali Jayte ayuu madaxweyne Guudlaawe wuxuu sidoo kale xilka gudoomiyaha gobolka u magacaabay Cabdullaahi Axmed Macalin Surufow. Guudlaawe ayaa sheegay inuu tallaabadan qaaday kadib talo soo jeedin ka timid madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle iyo markii uu garowsaday inay lagama maarmaan tahay dardargelinta howlaha kala duwan ee horyaalla maamulka gobolka Hiiraan iyo mideynta bulshada si loo hirgeliyo shuruucda dalka iyo dastuurka dowladda Hirshabelle. tallaabada xilka looga qaaday Cali Jayte ayaa ah mid lama filaan ah maadaama uu kaalin xooggan oo muuqata ku lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo inta badan looga saaray gobolka Hiiraan. Cali Jayte ayaa dhowaan sheegay in qorshaha cusub ee wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab uu ka gedisan yahay midkii wejigii koowaad la tijaabiyay ee kacdoonka shacabka kaasi oo kooxda Al-Shabaab loogu xoreeyay deegaano hor leh. Master Jayte ayaa ka dhawaajiyay in qorshaha dagaalka uu uga harayo madaxda sare ee dalka maadaama laga leexday nidaamkii hore ee ugu guuleystay wejiga koowaad ee dagaalka Al-Shabaab ee ahaa kacdoon dadweyne. waxay u baahan tahay aragti qaran, aniga ma sii wadi karo dagaalka mar haddii xuduudda Hiiraan laga gudbo ka mas'uul ahaan ima qusayso ayuu yiri Master Jayte. aragtida aan qabo dagaalkan markii hore kuma bilaaban aragti qaran ee si lama filaan ah ayuu ku bilowday wuuna ku guuleystay ayuu yiri Master Jayte. ma cadda haddii ay xiriiraan xilka qaadista Jayte iyo hadaladii oo dhowaan jeediyay madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo haatan ah ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan xasilinta iyo arrimaha rayidka deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab ayaa markii horeysay sheegay in Al-Shabaab ay malaayiin dollar ku bixinaysa sidii meesha looga saari lahaa gudoomiye Cali Jayte Cusmaan isla markaana xilka looga qaadi lahaa sida uu hadalka u dhigay. madaxweynihii hore ee Hirshabelle ayaa sidoo kale xusay in beddelka Cali Jayte ay tahay mid u hiilinaysa Al-Shabaab isla markaana ay hoos u dhigayso howlgallada ka socda gobolka. sidoo kale wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ugu baaqay inuu iska ilaaliyo dhagarta Al-Shabaab isaga oo ka dalbaday inuusan bedelin Cali Jayte. waxaan helnay xog lagu kalsoon yahay oo sheegaysa in Al-Shabaab ay malaayiin lacag ku bixinayso sidii gudoomiye Cali Jayte loo bedeli lahaa ayuu yiri Master Waare. beddelka gudoomiye Jayte ayaa ah mid gurmad iyo nasteexo siinayso shabaab. madaxweyne Guudlaawe Xuseen iska daa gudoomiye Cali Jayte ayuu yiri Master Waare.